السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. weedhan aynu soo qaadan doono ee dhex martay Hitler iyo Napoleon. Sida xaalka Soomaalidu uu maanta ku socdo marka loo eego, waa weedha Soomaalida sugaysa ee maalin maalmaha ka mid ah la oran doono. Haddii sida aynu maanta nahay iyo halka aynu ku sii soconno, aynu ka soo noqon weyno. sanadkii 1940 markii uu Hitler duulaankiisii Naaziga ahaa ku qabsaday dalka Faransiiska ee uu gacanta ku dhigay caasimadii Paris ee loo yaqaanay caasimadda jacaylka, burjigeedii Eiffel-na uu ka babaday calankii Jarmalka ee Naaziga ahaa, Hitlerna uu dhex timishleeyay caasimadii Paris, ayuu booqasho ku tagay qabriga halkaas looga dhisay Napoleon Bonaparte. kadibna inta uu si qadarin iyo weyneyn la ugu foorarsaday ayuu ku yiri qabrigii, iga raali ahow Napoleonka igu qaaliga ahow, waan ka xumahay inaan jabiyay oo qabsaday dalkaagii, balse waa lama huraan inaad ogaato sababta ay ku dhacday oo ah intii ay shacabkaagu ku foorareen ee ku mashquulsanaayeen qiyaasidda jidhka haweenka jilaayada ah si ay ugu tolaan dhar laaleeg oo ay jilaadooda ku sallaxayaan. aniga shacabkaygu waxa uu ku mashquulsanaa oo ku fooraray qiyaasta afafka madaafiicda iyo qoryaha. maanta bulshada Soomaaliyeed markaynu fiirsanno in yar oo Ilaahay dhowray mooyaane waxaynu ku foorarnaa mala yacni waxaynu qaybsanahay in heeso iyo qoobka ciyaar noloshoodii u hibeeyay, in ku fikiraysa sidee ayaan dadka isu soo hortaagaa ee wax unugu sheega oo ugu dhiiradaa, in ku mashquulsan sidee ayaan mar qura xil u hantaa oo magacayga jago aan ku magacoonahay looga horeysiiyaa, in ku taamaysa sidee ayaan hiddo iyo dhaqan ciyaarahooda u bartaa ee ugu faanaa, in u heelan sidee ayaan xafiis lugaha isu saartaa oo fadhiga ugu shaqeeyaa, in ku foorarta sidee ayaan badeecad aan lacag weyn dhulka kaga dhufanayo dalka u soo geliyaa habatayo xumaato oo aan uga faa'iidaa, in higsigooduba yahay sidee ayaan lacag u yeeshaa wixii aan doonaba aan fale, in jacayl biyo dhacay iyo hebel iyo heblaayan ku jira iyo waan ka baxay noloshoodii ku qaadatay, in dugsiyada iyo jaamacadaha hoosaasinta ah ee aanay aqoonta oolin ee iyagu aqoonta dilaya u arkay inay ka aflaxayaan oo casharo aanay imtixaanka dabadii xaraf ka soo xasuusanayn ku iimaan qaadan oo noloshoodii ku qaatay, in baraha bulshada ula baxay suntan malabka loogu soo daray oo muxuu yidhi iyo maxaa la soo dhigay ku mashquulsan, in ka shaqaysanaysa ka qoslinta inta kale, in iyaguna u nool ku qosolka inta ka qoslintooda ka shaqaynaysa, in qabiilka yaga nebiyo ah ciidaha kalena waa naanaabo afka ka qaadila, in xaqdi iyo cuqdad iyo fayras faafinaysa oo dadka kale irdhaynaysa, in hantidii ummadda cadaawaha hoosta uga saxeexaysa oo kala heshiinaysa, in macdantii dalka hoosta ka dhoofinaysa oo gacan saar nacabkeena lale, in si badheedh ah birihii looga soo samaysanayay rasaasta lagu leynayo ugu dhoofinaya nacabkeenii guunka ahaa, in qashin meel walba ku qubaysa oo cudurka iyagu aasaasaya oo baahinaya, in dawooyin dabiib aan lahayn ee dilaayo ah dalka ku soo horaya dadkana ka gadaya, in sheeganaysa inay macallimiin yihiin oo carruurta tarbiyadaynayaan si iyagu dhaqankii anshaxii iyo tarbiyadiiba ka dilaya, in carooshadu shaqaystayaalo oo haddii xoogaa loo laabo waxba aan dhowranayn, in ku hamiyeysa sidii ay tan boodhka badan ee ay Afrika gaajo ula baxeen oo dhan u dhaafi lahaayeen oo bad iyo saxare iyo magafaba ugu badheedhaya, in ay dhul shisheeye qaxoonti ku noqdaan oo baraf iyo baahiyo isu qabtaan, in dhirtii ay dhulkeena iyo xoolaheenuba ku tiirsanaayeen gubaya oo dhuxul ka samaynaya, danna aan ka lahayn deegaanka xaalufaya. intaas oo dhan iyo ino kale oo idinka maankiina ku duugan oo aad ka daraasaynaysaanba way buuxaan. dadka wanaagsan ee aad maanta is odhan karto ummadda way u damqanayaan waa in yar oo kooban. intaasna waa xaalka Soomaalida. dhinaca kale haddii aynu eegno, Kenya ayaa ummadda Soomaaliyeed xeebtoodii Afrika ugu dheereyd iyo baddoodii ku haysata. Ethiopia ayaa dekedaheennii waaxo laga siiyey oo sida ay doontaba u adeegsanaysa. dhaqaalaha Kenya iyo Ethiopia waxa uu uga xiroodaa qaadka ay ka iibiyaan Soomaalida. inta ay Soomaalidu isku jeedaanna Ethiopia waxa ay samaysanaysaa hub noocyo badan oo aan loogu babac dhigi karayn. warshadeeda hubku birta ay ku shaqayso ee saanada ka samaysana in badan oo ka mid ah waa birlibaaxda looga dhoofiyo dhulka Soomaalida ee loo raro. higsiga ugu weyn ee Ethiopia
waa in ay hesho dekedo oo ay ka baxdo dhulka xidhan oo ay hesho dhul caalamka u furan oo dekedo leh deked maanta uga dhow dhulka Soomaaliyeed oo ay fursad ku helaysaana ma jirto inay shacabka Soomaaliyeed oo dhan baabi'iyaan waxay ku siman tahay qaadka oo ay cudur ugu soo mudaan qoys kasta oo Soomaaliyeedna 99% qof qayiila ayaa ku jira cudurkaasina wuu ina riiqayaa oo ina marinayaa ciidamada Soomaaliyeed ee aynu ku faano ee gobol waliba uu leeyahay nabadayada ayay sugayaan iyo nabadayada ayay hayaan iyo iyaga ayaanu ku seexanaana 99.9 way qayilaan oo iyaga ayaaba dadka ugu hormaranaya si sahlan oo bilaa difaac ahna dhulka Soomaaliyeed waa loo qabsan karaa oo niman muddo ka badan 1000 sano cadaawad aynu isu haynay ayaa iyaga oo taxtaxaashinaya soo gelaya laga yaabaa badankiinu inaad ku fikiraysaan inaanu anagu cadaawaha wax fahansiinayno amaba aanu u saadinayno dalkeena in la qabsado balse waa nin iyo garaadkii waxana aan isweydiinayaa tolow haddii ay dhacdo maalin in boqorka ama madaxweynaha cadowgeenu uu dalkeena cagaha soo dhigo isaga oo qabsaday muxuu ka dhex odhan doonaa weydiintaas jawaabteeduna waa dhankiina waxaa laga hayaa Aflaadoon oo noolaa Nabi Ciise hortii dadka wanaagsan ee u qalmo ummadda inay garwadaan marka ay ka aamusaan ee ka gaabiyaan kaalintoodaas waxa lagu ciqaabaa inay hogaamiyaan iyaga kuwo si walba uga liita oo diiqad